بسم الله مجيء ودكتور راشد محمود فرح كنا هقول استاك Somali Sudanese كنا تقص orthopedic trauma surgery. Our case presentation waxa case keena waxa malunium ama qoloc lafta ku imaado kaasoo sababay traditional bone settlers ama wax loo yaqaan Soomaalida kaf Soomaaliga lagu daaweeyo. Introduction so maxaa la kaf Soomaali kaf Soomaali waa waxyaabaha ugu badan sababa unacceptable outcome-ka musculoskeletal cases-ka waxyaabaha ugu badan sababay waxyaabaha ugu badan orthopedic practitioners-ka la challenge ugu badan ka imaadaan waxa waaye kaf Soomaaliga complication-ada ka imaado inkastoo aan aragnay kaf Soomaali badan oo successful noqday laakiin haddana at the same time complication-kooda badan yihiin marka our complication ka our case kan wuxuu maanta wuxuu quseeyaa marka malunium ka imaada complication traditional bone settlers ka sababay so waxyaabaha marka sababay traditional bone settlers ka inay waxyaabaha case ka noocan oo kale la challenge gareeyaan waxa uu isticmaalaa wax radiographical ama x-ray isticmaalaa so everybody wuxuu isticmaalayaa his own mind inuu oo isticmaalo so what's malunium waa maxay malunium waa lafti inay healing ku samayso improper position ama lafti qoloc ku imaato so our case presentation 18 years old female waxay noogu imaatay iyadoo ka caawinayso leg pain iyo left femur pain and right leg pain and also waxay ka caawinaysaa deformity oo lugta qaybta leg iyo femurta boodada taasoo sababtay inay dhacday 5 sano ka hor after 5 years the family waxay u qaadeen bukaankii traditional bone settlers ama local healers so waxay isku dayeen inay lugta daaweeyaan manipulation way soo sameeyeen bukaanka xanuun badan oo dareemay bukaan waa dareemi kartaa tibia iyo femur ka jaban lugtii boodada labada lugood so cabaadkiisa ku batay maysa taabaneen so after 3 months waxay ka fureen kaas alwaaxidii wixii lagu xiray oo traditional ka ah kabacdina waxa waa bukaankii already kala soo sameysmay deformity-gii ma six karin so bukaankii wuxuu noogu imaaday OPD-da wuxuu ugu imaaday after 5 years 5 sano markuu meel iska jiifay oo noogu imaaday so waa arki kartaa x-ray ka qaadna x-rays kuwad oo lugta deformity meesha ku jiro meesha waa legi tibida waxaa ka jiro angulation oo severe angulated malunium then this is the picture of the leg bukaanki lugtiisa watana then this is the femur lugta kale tii hore waxay lugta oo qaybta lugta hoose tan waa femurti oo lugta kale laba lugood bay ka jabneed this is the femur x-ray before the operation then waxaan u sameynay bukaankii after evaluation of anesthesia waxaan u sameynay operation kaasoo aan u sameynay intermedullary nailing oo laba usbuuc ugu dhaxeeyo because of each one waxa waa major operation one day ma xamili karin in loo sameeyo so this is interoperative fixation after we did the fixation of the tibia so lugtii qalocneed lugta qaybta hoose waxaan u sameynay sixitaan taasaan u sameynay after we corrected the deformity ana lugtina wada formin waxaan u sameynay only this in a minimum incision oo aan u sameyno oo nail injury-ga iyo minimal incision oo correction of deformity-ga is interoperative so this first post operative day alhamdulillah nabarka waa clean there is no infection there is no risk so then lugta kale weli still lugta kale maana sameynin waa lugta kale ka gaabata waa qaybta boodada this is post operative x-ray after the intermedullary fixation and this is the femur after 1 week waxaan u sameynaa again femur fixation ama boodada inaan ka kabno oo u sameynaa intermedullary fixation ayadana u sameynaa finally bukaanka waa kana after 5 years series ka jiftay hadda maanta lugeeda ku istaagtay and this is post after 5 years
lugeeda ku socotaan ayadoo xaafadeeda joogto. So our home message waxa waaye my home message waxa voice for the voiceless. bukaanada pediatric musculoskeletal injury qaba ama pediatric fractures qabo wax decision kuma lahan managementigooda ama wax decision kuma lahan waxa ku leh family ka decision ku leh. So wixii waa dadka ugu nugul loo sameeyo ama kab Soomaali ama traditional obstetricska kuwaasoo la kulma complication badan. Thank you very much.